magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbc.somali.com. kulan wacan wanaagsan akhyaarsan dhageysanaysa idilhaantiima Melbourne waa joogtaan waa galabnimo Sabtiga 2 bisha koowaad ee sanadka 2021 arimahan barnaamijka galabta idinku heynana waxa kamid ah magaalada Garowe lagu soo gabagabay shirkii madasha aragti wadaaga ee Macahadka Heritage hadaba maxay yihiin talooyinka la soo jeediyay dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ah taabagelinta nidaam federaal oo dhamaystiran xasilinta dalka iyo sameynta ciidan qaran oo heshiis lagu yahay qabashada doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025 dawladda Turkiga oo ka hadashay dad muwaadiniin oo u dhashay wadankaasi oo maanta lagu weeraray inta u dhaxeysay magaalada Muqdisho iyo Afgooyay dalka Faransiiskana dad ka badan 2500 ayaa lagu soo waramayaa inay jibiyeen xayiraadii lagaga hortagay faafinta fayraska corona ee wadankaasi waxa kale oo maqli doontaan geelun aad buu baxaa hadda ugu horeeyay xanuun hore aan qabnay iyo waxaan haynay midna ma ahan neefkii oo hashi caawa aad gela soo xareysay waxaad arkaysaa geeli hal iska fadhido xaasha talka dhisa baqtiyaysa waa deegaan ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya oo laga soo sheegay cudur aan la aqoonin oo ku dhacay neefafka ama xoolaha geela iyo waliba wararka ciyaaraha barnaamijku waxa isku soo dubariday Samir Cabdullaahi Jaamac waxaan idin la socodsiin doonaa haddii ay beedmaaniga Bashir Maxamed Caata sheey marka hore waxaynu ku horeynaynaa warkii caalamka iyo Fartuun Ismaaciil mahadsanid Bashir wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa ku andacooday in cudurka safmarka coronavirus uu ka bilowday qaybo badan oo adduunka ah balse uusan Shiinaha kaliya ahayn waxa uu sheegay in aragtidan lagu taageeray in la kordhiyo tirada cilmi baarayaasha hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in kiisaskii ugu horeeyay ee cudurkan laga helay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha saynisyahanada WHO ayaa bilaabi doona baaritaankooda ku aadan magaalada asal ahaan uu ka dilaa cudurka dadka degan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa soo dhaweeyay baaritaanka hay'adda waxaana kamid ah dadkaasi oo waa kan mid kamid ah dadkaasi oo aragtidiisa ka hadlaya Shiinuhu waa inuu albaabada u furaa khubarada si ay u baaraan una caddeeyaan in cudurku uu ka bilaabmay magaalada Wuhan sababtoo ah shacab badan oo ku nool Wuhan waxay haatan rumaysan yihiin in fayraskan uusan markii hore ka bilaabman halkan marka waxay la tahay in dawladdu ay si buuxda u taageerto baaritaanka ayna si dhow ula shaqayso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waa haddii ay yimaadaan waa arrin wanaagsan in la caddeeyo halka uu ka yimid fayraska Hindiya ayaa waxaa ka socda olole ballaaran oo wadanka oo dhan ah kaasi oo loogu talagalay barnaamijka talaalka ee coronavirus arintan ayaa lagu doonayaa in lagu talaalo dad gaaraya 300 oo milyan oo qof wixii loo gaaro bartamaha sanadka iyadoo la isticmaalayo talaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford ama shirkadda dawada sameysa ee AstraZeneca taasi oo ay haatan ku taliyeen guddi dawladeeda wasiirka caafimaadka Hindiya ayaa sheegay in ololahan ayaa ka qayb qaadanayaan 10,000 oo shaqaale caafimaad ah iyo mutadawiciin kale waxa uu wariyaashu sheegay in aysan jirin wax heshiis ah oo ku saabsan nabadgelyada talaalka waxa uu uga digay in dadka aysan u dhigin wararka been abuurka ah COVID-19 ayaa waxa uu dhintay ku dhawaad 150 qof oo reer Hindiya ah qabiirka ugu sareeya dawladda Mareykanka ee ku takhasusay cudurrada faafa ayaa sheegay in Ingiriiska uusan ku raacsanayn qorshayaasha ah in dad badan la siiyo qaybta koobaad ee talaalka coronavirus iyadoo dib loo dhigayo qaybta labaad ee la siin doono talaalka Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanka uu ku adkeysan doono inuu dadka siiyo dawooyinka labaad 12 maalmood kadib qaybta koobaad taasi oo soo saarayaasha ay sheegeen in ay muhiim tahay si loo gaaro heerka ugu sareeya ee ka hortagga COVID-19 xayiraado cusub ayaa lagu wadaa inuu ka dhaqan galo Thailand dhamaadka isbuucan si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo soo noqnoqday baararka iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo ayaa la xirayaa sidoo kale garoomada feerka fagaaraha dagaalka iyo goobaha jimicsiga ayaa la xiri doonaa
iskuulada ayaa sidoo kale la faray in 2 isbuuc la xiro. mas-uuliyiinta ayaa rajaynaya inay ka fogaadaan mawjad labaad oo cudurkan ah, balse xanuunkana ayaa si dhaqso leh sare ugu kacay dhammaadka bishii hore ee December. qaar badan oo kamid ah kiisaska cusub ayaa lala xiriiriyay shaqaale muhaajiriin ah oo ku nool magaalada Samat Saqon oo ku taala gobolka koonfurta Bangkok. koox kale ayaa waxaa lala xiriiriyay goobaha qamaarka lagu ciyaaro ee bariga Thailand. dalka Thailand ayaa laga diiwaangeliyay in ka badan 7,000 oo kiisas ah iyo 64 dhimasho ah tan iyo markii uu dilaacay cudurkan bishii Janaayo ee sanadkii 2020. ugu dambeynna mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa faahfaahin ka bixiyay isu soo bax weyn oo sharci darro ah oo loogu dabaaldegayay sanadka cusub, kaasi oo lagu qabtay gobolka Brittany iyada oo meesha laga saaray bandowga coronavirus. waxay sheegeen in 2,500 oo qof ay ka qayb galeen xafladda, iyadoo qaarkood ay ku lug lahaayeen isku dhacyo rabshado wata oo dhexmaray iyaga iyo booliiska. dadkaasi ayaa dhagxaan iyo dhalooyin ku tuuray booliiska oo isku dayayay inay xafladaasi joojiyaan. saraakiisha tuulada Liorona ayaa sheegay in dadka xafladda ka qaybgalaya ay kasoo kala safreen dalka Faransiiska oo dhan si ay dabaaldega uga qayb qaataan, qaarna ay weli halkaasi ku sugan yihiin. maayarka tuulada Roseline Brevet ayaa sheegtay in booliiska laga tira batay. booliska ayaa iiga digay fiidkii in gawaarida ay soo gaareen xarunta. waxay isku dayeen inay ka hor istaagaan soo gelitaanka xarunta, balse awoodba ma lahayn marka loo eego tirada dadka oo aad u badnayd. codkaasi waxa uu dambeeyay warkii caalamku ee nala socodsiinaysa Fartoos Ismaaciil. halka dhageystayaal kala socoteenna waa BBC. wahagaag dhegeystayaal, goorsii horeysay waxaa magaalada Garowe lagu soo gabagabeeyay shirka madasha aragti wadaagga Machadka Heritage. haddii ay noo suurto gasho toos aynu u tagi doonaa, balse markana dowladda Turkiga ayaa ka hadashay weerar maanta lagu qaaday shirkad dhismaha qaabilsan oo laga leeyahay waddankaasi oo dhisaysay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga ayaa sheegtay in muwaadiniin u dhashay waddankaasi ay ku dhinteen weerarka kadib markii qof isku soo xiray walxaha qarxa uu beegsaday goob ay joogeen shaqaalaha shirkadda iyo ciidamo booliska. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay inta u dhaxaysay deegaanada Xawa Cabdi iyo Lafoole. xalayna duqeyn dhanka cirka ah ayaa la sheegay in lala beegsaday idaacad ku hadasha afka ururka Al-Shabaab ee ku taagala ee gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba faahfaahinta ururkaasi waxaa magaalada Muqdisho kala socday wariyahayaga Ibraahim Maxamed Aadan oo imika toos qadka ugu jira. Ibraahim, bal faahfaahintan si oo inoogu horumar qaraxa maanta ka dhacay Muqdisho Afgooyinta u dhaxaysa. Bashir, waad mahadsan tahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay inay maqasho warka ku saabsan weerarka argagixisa ee saaki lagu qaaday shirkad Turkidu leeyihiin oo dhismo ka wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. halkaasoo wasaaradda arrimaha dibaddu ay sheegtay in 4 qof oo ku dhintay mid kamida uu ahaa muwaadin u dhashay dalka Turkiga. sidoo kale waxay sheegtay in dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay 4 kamida ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka Turkiga. wasaaradda arrimaha dibaddu waxay sheegtay inay si kulul u cambaaraynayso weerarkaas lagu bartilmaameedsaday shaqaalaha shirkadda Turkida ah ee wada dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, iyadoo sheegtay in ay shirkadaasi ka shaqeynaysay siday wax ugu biirin lahayd horumarka dalka Soomaaliya. waxa ay wasaaradda arrimaha dibaddu ay u rajaysay inay si degdega uga kacaan dhaawacyada soo gaaray muwaadiniinteeda ku dhaawacmay weerarkaasi, waxayna sheegtay in ay mar kasta garab taagan yihiin walaalahooda iyo saaxiibadooda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ee federaalka ah. Bashiirow, barqanimadii maanta ay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qarxa uu bartilmaameedsaday shaqaalaha Turkida ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliska gaarka ah ee Haram Cad, meel aan sidaa uga fogeyn inta u dhaxaysa Xawa Cabdi iyo Lafoole wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. dadka deegaanku waxay BBC-da u sheegeen inay qarax weyn maqleen, deetana halkaasi waxay kasoo wariyeen in khasaare ka dhashay. dabcan hadda sida wasaaradda arrimaha dibadda ay Turkigu sheegtayba 4 qof ayaa ku dhimatay iyadoo 4 kale oo Turki ah ay ku dhaawacmeen. sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa inay jireen dhaawacyo soo gaaray askarta ciidanka ilaalada halkaasi ka ahaa. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxayna sheegtay in ay ku dishay mid kamida shaqaalaha Turkida ee halkaasi shaqada ka waday, sidoo kalena ku dhaawacday 4 kale.
wadadan u dhaxaysa muqdisho iyo afgooye dhismeedu wuxuu socday muddo 2 sano ah. dhowr jeer oo hore ayaa weerar kala duwan lagu soo qaaday shaqaalaha dhismaha halkaasi ka wada ee Turkida, waxaana ugu darnaa weerarkii dhacay bishii December ee sanadkii 2019 markaasoo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo aad u cusla oo ku qarxay isgoyska Ex Control afgooye, halkaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof oo ay ka mid ahaayeen 2 injineer oo Turki ah. dhismaha wadadan waxaa lacagta ku bixisay dowladda Qatar, halka shirkadda qandaraaska qaadatay dhismaha ay tahay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga. wadadaasi waa 30 kilomitir, waxaana hadda ay ku dhowdahay gabagabo, inkastoo mashbiyadiyada iyo wadooyinka qaybihii kale ee muhiimka ah ay wali dhiman yihiin, laakiin waxaad moodaa inay si xawliya dhismaha wadadaasi ku socoto. warbaahinta maxalliguna waxay sheegtay in markii weerarkaasi dhacay kadib haddana ay si caadiya u sii socotay dhismaha wadadaasi, iyadoo gawaarida waaweyn ee culus ee shaqada ka wada halkaasi iyo shaqaaluhuba ay shaqadooda sii wateen gelinkii dambe. Bashiir, wahagaag Ibraahim, oo dhanka kale xalay waxaa jirtay in duqeyna la egtay idaacad la sheegay inay ku hadasho ururka afka al-shabaab. iyadoo wax waroo ka soo kordha arrintaasi cid ka hadashay? Bashir, waa mahadsan tahay. tan iyo maanta wararkeena waxaa ku jirtay in weerarkaasi xalay fiidkii uu dhacay, islamarkaana uu ka dhacay deegaanka Kuuya Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa markii ugu horeysay weerarkaasi ka hadlay. waxa uu sheegay in 2 weerar oo is-xigta inay ku qaadeen 2 dhisme oo ku yaala Kuuya Barrow. waxa ay sheegeen in wararka hordhaca ah ay hayaan ay sheegayaan in weeraradaasi lagu burburiyey 2 dhisme oo bartilmaameed ku ahaa. sidoo kale waxay sheegeen ilaa hadda inaanay hayn xog ku saabsan in cid rayida oo wax ku noqotay weeraradaas ama ku dhaawacantay ama ku dhimatay aanay jirin. sidoo kalena ay sii wadi doonaan dagaalkooda ka dhanka ah al-shabaab. ha yeeshee warbaahinta al-shabaab waxay sheegeen in halka la bartilmaameedsada ee ahayd idaacad la yiraahdo al-Furqaan oo ka mid ah idaacadaha taageera al-shabaab. sidoo kale warbaahinta al-shabaab waxay sheegeen in weerarkaasi lagu dhaawacay 3 qof oo rayida oo joogay dhismaha idaacaddu ay deganeed dhismo ku dhow. ma jirto ila madax bannaan oo ka hadlaya wixii ka dhacay Kuuya Barrow marka laga soo tago hadallada kala duwan ee kasoo kala yeeray warbaahinta al-shabaab iyo taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM oo fulisay weerarkaas xagga cirka. wuxuu noqonayaa weerarkii ugu horeeyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay Soomaaliya ka geystaan tan iyo markii sanadka cusub ee 2021 uu dhashay habeen hore. Bashiirow. Ibraahim, aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa waryahayga magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo qadka telefoonka si toos ugu jiray, isagoona igu warramay wararkii ugu dambeeyay ku aadan weerar maanta ka dhacay inta u dhaxaysa ee Muqdisho iyo afgooye. markana wararka Soomaalida waynu soo laaban doonaa. xilli viruska corona uu farabadan ku hayay qaaradda Yurub ayaa dad ka badan 2500 oo qof oo ku nool waddanka Faransiiska waxaa la sheegayaa inay jabiyeen ama ay ku xadgudbeen xayiraad ee dowladda waddankaasi soo rogtay si looga gaashaanto faafidda cudurka corona. dadkan ayaa ka qayb galay baa la yiri bandhig faneed iyo xaflad markaasi lagu qabtay dalkaasi magaalo ka mid ah sanadka cusub awgii. xafladda ama isumaatanka ayaa ka dhacday meel lagu magacaabay Lorraine, kaasi oo bilowday baa la yiri Khamiistii la soo dhaafay ilaa imikana dadku markaasi ay ka qayb galayeen xafladdaasi. Samir Cabdullaahi Jaamac ayaa ka warramaysa. Shiinaha, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in cudurka safmarka ah ee coronavirus uu ka bilowmay guud ahaan caalamka, isla markaasina uusan Shiinaha kaliya ku ahayn. waxa uu sheegay in warbixintan ay qayb ka yihiin baaritaano la sameeyey. Britain, mid ka mid ah dhaqaatiirta ugu waaweyn Britain, ayaa cisbitaalada dalkaasi uga digay in xaaladda ugu daran ee COVID-19 ay soo socoto. madaxa macadka Royal Professor Andrew Goddard ayaa sheegay in kiisaska sii badanaya ee viruska uu ka soo faafayo magaalada London iyo koonfur bari England, isla markaasina bilooyinka soo socda ay xaaladda sii adkaan karto. dalka Faransiiska ku dhowaad 2500 oo qof ayaa ka qayb galay munaasabad si sharci darro ah loo qabtay, taasoo ka hor imaanaysa bandowga loo soo rogay cudurka coronavirus. booliiska iyo ka soo qaybgalayaasha munaasabadda ayay isku dhacyo dhex mareen iyadoo ay gaari gubeen, isla markaana ay tuuriyeynayeen saraakiisha booliiska oo isku dayayay inay joojiyaan munaasabadda. ugu yaraan 3 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay shaqaaqada. war qoraal ay soo saareen saraakiisha ayaa lagu sheegay in booliiska ay isku dayayeen inay joojiyaan munaasabadda, balse ay caro kala kulmeen ka soo qaybgalayaasha xafladda. mid ka mid a dadkii ka soo qayb galay oo magaciisa ku soo koobay Joe ayaa warbaahinta AFP-da u sheegay in dad yar uun ay tixgelinayeen kala fogaanshiyaha dadweynaha inta ay munaasabadda socotay.
C'est plutôt organisé, il y a même des stands de bouffe pour manger. si wanaagsan ayaa loo soo agaasimay oo xitaa waxaa meesha la keenay raashin la cuno dad badan ayaa meesha isugu yimaaday oo qaar badan oo ka mid waxay ka yimaadeen dalka dibadiisa qaar baa ka yimid waddanka Austria halka kuwa kalena ka yimaadeen Talyaaniga Il y en avait qui venaient d'Italie. tiro dad ah ayaa dhex seexday gawaaridooda ka hor inta uusan jaanka ciyaarka bilaaban sida ay sheegayso Leo Monde ka soo qaybgalayaasha qaarkood ayaa doonayay in ay gaaraan ilaa maalinka Axadda halka kuwa kalena ay qorsheynayeen inay gaaraan ilaa maalinta Talaadada samiraad bay u mahadsantahay dhegeystayaal weli halkan nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهاجا dhegeystayaal waxay noo soo socotay warbixin kale oo ku saabsan luqadaha Oromada iyo kan Soomaaliga oo la sheegay in lagu baranayo iskoolada ku yaala deegaanada Soomaalida ee waddanka Itoobiya waliba dhanka Oromada balse markana wax magaalada Garowe ee maamulka kuwa kale oo badan halkaasi oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedyada haddaba markan waxaynu eegaynaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi Garowe iyo waliba sidoo kale waxyaabihii talooyinka ahaa ee la soo jeediyay waxa imika qadka telefoonka ee magaalada Garowe si toos ugu jira agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid xaasho oo imika qadka telefoonka si toos ugu jira Cabdirashiid aad maqasho maalin wanaagsan waayahay bal waxaad inooga warantaa marka qodobadii ka soo baxay shirkaasi maalmahanba ka socday Garowe maxaad inooga sheegi kartaa waad mahadsantahay shirku horta sida ciwaanku wuxuu ahaa shir aragti wadaag ah afar qodob baan ugu talagalay diiradda in lagu saaro oo kulligood 2025 ku wajahan sida Soomaaliya doorasho qof iyo cod u gaari karto amniga loo sugi karo federaalka looga shaqaysiin karo constitutionka loo dhameystiri karo khubaro iyo mas'uuliyiin hawshaas gacanta ku haysay warbixino kala duwan ka soo jeediyay waxa kale oo iyaduna mowduuca aad iyo aad u hareeyay doorashada hadda taagan oo 2020 ah iyo 2020 oo runtii iyadu qabyo ah ba aad looga hadlay saddex madaxweyne maamul goboleed baa joogay oo Galmudug iyo Puntland iyo Jubbaland labadii aqal mas'uuliyiintooda ugu sareysay gudoonkii waa joogeen waxa joogay maxaa la yiraahdaa ra'iisul hore iyo laba madaxweyne hore iyo musharaxiin badan iyo ra'iisul ku-xigeenkii iyo afar wasiir way Cabdirashiid oo marka nuxurka qodobadii ka soo baxay marka guud ahaan waxa la isku waafaqay in la taageero dadaalka ay madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweyne Dani wadaan oo arrinta doorashada taagan in la xalliyo si doorasho loogu dareero waxa aad iyo aad hoosta looga xariiqay dalkan xasarad iyo dagaal iyo muran iyo doorasho la isku haysto inuu ka bixi karin oo tabarteed lahayn wax kasta walaalo lagu dhameeyo waxa kale ugu weynaayo hoosta laga xariiqay wax kasta oo laga gaabiyay oo amni la xiriira oo doorasho la xiriira oo dastuur la xiriira oo federaal la xiriira inay u cakirnaayeen khilaafka siyaasadeed ee jiray Soomaaliyana inay u dabranaanayso macnaha khilaafka siyaasadeed inay u dabranaanayso hadaan xal loo helin marka waxa aad iyo aad loogu celceliyay siyaasiyiintu inay dadka u turaan gacmaha la isqabsado dalkana maslaxadiisa ay ku jirto in khilaafka la yareeyo oo la heshiiyo arrintaas heshiiskaas iyo Garowe spiritku wuxuu ahaa nabad iyo walaalow wax ku dhaanta ma jirto wixii dareen la isku qabay iyo waxa wixii la kala aaminsanaa iyo waxa wixii la isku eedeynayna waxba la iskama qarin oo waa la isla wadaagay waaye marka si gaar haddii aanu dul istaagna arrimaha doorashooyinka maxaa la taaban kara oo ka soo baxay shirkaasi Garowe waxaa la taageeray shirkii dhuusamareeb ka soo bilowday xamarna ku soo gabagaboobay oo September 17keedii go'aamadii ka soo baxay waxaase la yiri wixii ka dhiman oo ah raacyada iyo meelaha la isku diidan yahay oo ama Jubbaland iyo dawladda federaalka isku diidan yihiin ama musharaxiinta iyo dadkii go'aanka gaaray isku diidan yihiin in laga wada hadlo oo dadka ay khusayso ama kuwa musharaxiinta ama kuwa gobolada ama Puntland iyo Jubbaland ama maaragtay in ay isku noqdaan oo la kulmo ama maaragtay dadaalka iyo waanwaanta ay ka shaqeynayaan madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweyne Dani hal lagu soo dhameeyo ama sidii madaxweyne Dani ku baaqay in shirkii xamar oo kale ama kii dhuusamareeb oo kale la isugu yimaado marka guud ahaan warmutiyadna waa ka soo saarnay oo heli doontaan soo dhameystiran laakiin nuxurku wuxuu ahaa waayeel waa anagu aan siyeelahayn waxba noo bilowday waxna waa naga istaagsan yihiin waxaan lama dhaqaajin karo iyadoo aan la heshiin waxaana laga digay oo aad iyo aad looga digay oo la cadeeyay inaysan sax ahayn lagana digay inaan la yeelin in doorashooyin iska socda oo dad gooniye wataan in dalkan laga dhaqaajiyana waa laga digay waxa la yiri doorashadii lagu dhaqaaqayo mid loo isla ogolyahay inay noqoto
marka guud ahaan waana la wada run hadlay waana la taabtay in la isku baahan yahay in la isla shaqeeyo waayahay cabdirashiid oo marka laga soo tago qodobadaasi aad soo jeedayseen sidoo kale dadka qaar waxay aaminsan yihiin in kulankaasi waa mid culays lagu saarayo dowladda iyo xaaladda siyaasadeed imika waddanka ka taagan oo tusaale ahaan oo kale ciddii dhegaysatay khudbadihii qaar kamid a siyaasiyiinta ay jeedinayeen waxay ahayn kuwo xanaf leh marka soo lama oran karo waxbaad uga sii daraysaan xaaladda imika waddanka u maraya maya arrintaas runta in xataa la tabto oo la kala eed sheegto xataa daaway keentaa laba qof xataa haddaa aragti is eedeynaya daawo in baa la raadinayaa dowladduna inay shirka raalli ka ahayd waxaa daliil u ah ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo 4 wasiir oo waaweyn baa joogay haddana hoolkii markuu shirku dhammaaday dadkii kasoo wada qayb galay oo baa sawirkoodii iyo gacmo isqabsigoodii baaba shirkii hoolkii laga soo dhiman waayay marka dowladda dadkii ka joogayna waa ku faraxsan yihiin shirka warmurtiyeedkana waa taageereen dadkii kaloo ama gobollada ka socday ama musharaxiin ahaa ama dadweyne iyo civil society ahaana waa taageereen guud ahaan marka shirkan shir la isla ogol yahay waxa ka soo baxayna la isla qaatay buu ahaa waayahay ka warran marka qodobadii haatan ka soo baxay shirkaasi dhaqangelintooda yay tahay marka in looga dambeeyo dhaqangelintooda uun hadda doorashada dalka waxaa la rabaa inay February 8 ka hor dhacdo marka laba madaxweyne ay hawshan anaga dhabarka u ridanay waxay kaloo sheegeen labaduba sheegeen madaxweyne qorqorna aad ugu nuuxnuuxsaday inay wax yarba u dhiman yihiin oo wada hadalla iyo telefoonno iyo wada hadal madaxda naga maqan buu yiri aan la hadlaynay waa badnayd wax yar baa noo dhiman inaan arrintan soo afjarnaan rajo weyn ka qabnaa buu yiri madaxweyne danina waa ku raacay marka guud ahaan waa la xog wareystay oo xataa markii la kala maqan yahay tuhunka iyo shakiga iska badan iyo maaragtay warka dadka loo kala geengeenayo laakiin hadda dadkii markay is heleen wax kasta waa la ogyahay qof walba wuxuu diidan yahay xaajaduna dee waxyaabo waaweyn baa la isku diidanaayo hadda habeen iyo maalin is xalisma karin baa dhici karta laakiin waa la dareensanaa in wada hadal wax dhaan aysan jirin waa la dareensanaa waayahay marka cabdirashiid ugu dambeyntii marka dhanka dowladda cid ma jirta ballan qaaday in wada hadalladaasi lasii ambaqaado oo madmadowga imika haatan jira laga heshiiyo runtii inta shirku socday waxaa la ekaa wada hadallada ka dhex socda madaxweynayaasha gobollada ama mas-uuliyiinta kale oo maaragtay madaxweynayaashii hore ha noqdaan ama guddoonka baarlamaanka ha noqoto ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka ha noqoto ama xiriirka ay la xiriirayaan madaxweynaha iyo dadka ka maqan ha noqoto siyaasiyiintu marka aad bay waqti isugu heleen oo kuwa maaragtay isku heleen haddana labadaas madaxweyne oo qorqor iyo deni hadda ku horna waa ku baaqeen inay hoggaangalayaan haddana way sheegeen inay hawshaas meel fiican u marayso wax yar baa noo dhiman bay yiraahdeen annaguna ilaahay inuu fududeeyaan ugu ducaynay waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha macadka heritage cabdirashiid xaashi oo toos qadka telefoonka magaalada garowe ugu jiray markana xoolo dhaqatada ku nool degmooyinka gaashaamo iyo daanood ee dowlad deegaanka soomaalida ee waddanka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dilaacay xanuun ku dhaca geel oo aan la garanayn waxa uu yahay xoolo dhaqatada halkaasi ku nool ayaa waxay sheegeen ama ay qayl dhan ka muujiyeen xanuunkan oo ay sheegeen inaanay garanaynba waxa uu yahay qaabka loo wajahayo haddaba warbixin umurtaasi ku saabsan waxa magaalada Jigjiga inooga soo diray wariye Maxamed Ibraahim oo halkaasi ku sugan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii toddobaadkan soo dhaafnay ay saraakiisha xafiiska howlaha ee dowlad deegaanka Soomaalidu ay ku dhawaaqeen in la helay saambal muujinaya xanuun ku dhacay qaar ka mid ah geela ku dhaqan dhulka hawdka bariga dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmooyinka Gaashaamo iyo Daanood ee deegaanka halkaas oo ahayd meeshii ugu horeysay saraakiisha caafimaadka xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalidu ay farta ay ku fiiqeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaana qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaamadan haatan laga soo sheegay in xanuunkaasi uu ku dhacay oo la hadlay BBC-da ay sheegayaan in xanuunkani faraba'an uu ku hayo xoolaha ku dhaqan geeyigaasi geelu aad buu u baxaa waxa kale la yiraahdo mid baktiyo mid dhalo oo isagoo markuu ilmuhu ka yimaado baktiyo ma gara maya hadda ugu horreeyay xanuun hore aanu qabnay iyo waxaanu haynay midna ma ahan waa qadar ilaahay oo kale laakiin neefkii oo hashii caawa aad gelaad soo xaraysay baa hal iska waxaad arkaysaa geeliyo hal iska fadhido xaasha talka dhisa baktiyeysa hal hadeer wax kale daaqaysa ogeyd baan ka dilnaa saad waxaad arkaysaa iyadii oo ka meel ku dhacday markaad saa ugu soo gaadhin naftu waa ka maqan qaar ka mid a dhakhaatiirta xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida oo aan hordhignay xanuunkan iyo siyaabaha looga daweyn karo ayaa waxa dhakhaatiirtan ay dhiisame ay ka muujinayaan xakamayta xanuunkan sida uu ku warramayo Dr. Halgan oo ka mid ah saraakiisha xafiiska xoolaha ee dowlad deegaanka Soomaalida dhowr cudur ay markii hore dadku ay lahaayeen waan uga shakisanahay inuu yihiin ayaan ka baadhnay run ahaantii markii aan ka weynayna saambaladii waxaan u sii gudbinay shaybaarka heer qaran kaas oo ka awood badan kan deegaanka run ahaantii rajo weyn baan ka qabnaa ka deegaan ahaana run ahaantii waanu dadaalo
ayaanu ku jirnaa annaga iyo ka degmo ahaanba run ahaantii taasoonu aanu ku rajo weynaa in aanu ka jawaab bixin karno xaaladan cudur ee bulshadu ay ka soo cabanayso. kasoko waxa loo helay in niyad samida ay muujinayaan saraakiisha caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa waxa taasi barbar soconaya walwalka weyn ee ka soo baxaya laabta geejiraha ku dhaqan geyga loo yaqaano dhulciideedka kuwaasoo iyagii xoolahooduba ay haatan maanka ku hayaan eebonamoti masiibada xanuunkan. arrintan ayaa imanaysa xilli sabooyinka waaweyn ee xooluhu biyaha ay ka cabaan ee ku yaala deegaanadaasi haatan la sheegayo inay yihiin kuwa haatan haawanaya ka gadaal markii cabsida xanuunkani ay si weyn kor u korodhay. maxamed ibraahim, xarunta dowladdeegaanka Soomaalida, magaalada Jigjiga. aad buu mahadsan yahay wariye maxamed ibraahim oo warbixintaasi inaga soo diray magaalada Jigjiga ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya. isla wararka Itoobiya intaanaan ka bixin iskoolada ku yaala ismaamulka Oromada dalka Itoobiya ayaa manhajkooda waxbarashada ku daray barashada af Soomaaliga halka deegaanka Soomaalida iskoolada ay ku yaalana lagu dhigi doono luqadda Oromada. madaxda waxbarashada dowladdeegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya ayaa sheegay in arrintan ay qayb ka tahay dadaalo la doonayay in dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka deegaanadaasi ay dhanka luqadda isku fahmaan oo sameeyaan isdhexgal bulsho. haddaba baahida haatan keentay in arrintan laga sameeyo iskoolada deegaanadaasi ayaanu ka wareysanay wasiir ku-xigeenka madaxa wasaaradda waxbarashada dowladdeegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya Cabdiqaadir Maxamed Shukri oo u warramay Fartuun Ismaaciil. bismillah salaam socotaan deegaanka Soomaalida iyo Oromadu waxay wadaagaan xuduud dheer oo dad walaala oo in badan calaaqaad fara badan soo lahaa. taas marka waxaa jirtay taraskii hadda afka ciidda loo daray TPLF baa waxay bilowday inay dadka ay dhibaatooyin fara badan ay ka dhex bilowdo. marka dhibaatooyinkii noocaas ahaa si looga gudbo dadku waxay bilaabeen inay is-aaminaan, inay wada shaqeeyaan, inay isdhexgalaan, in ay luqadaha iswadaarsadaan. hataa waxbarashadii in magaranaya la isdhaafsado oo gaar ahaan dadka xuduudaha deegaanada labada deegaan dega inay waxbarashada isa kaashadaan. marka waxaa jirtay si guudba dad deegaana oo qoomiyada ayaa qoomiyad kale dega maamul ahaan hoostaga way ka dhacdaa dalka si guud. Amara iyo Oromada oo kale way dhex jirtaa dad saas oo kale isku dhaafsan. marka qoomiyad walba waxa uu constitutionka waddanku u ogol yahay inay luqadooda wax ku barato. marka haddii dadkii maamul ahaan meel kale hoostagaan luqad ahaanna aynan ahayn waxaa waajiba la isla qaatay dadkaasi luqadooda inay ku bartaan si guud ahaanba manhajka deegaanka ku dhexyeelan ay qaataan. marka tan Soomaalida iyo Oromadu waxay keenaysaa in ay deegaanka Oromiya hadda ay u qaateen qorshe ahaan inay dhammaan iskuulaadka ku yaala deegaanka Oromiya marka laga reebo kuwa ay xuduudaha la wadaagaan Canfarta iyo Axmaarada marka laga reebo inay 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya ay luqadda Soomaaliga ku bilaabaan iskuulaadkooda oo dhan kana bilaabaan shanaan. haddase sanadkan 2013 ee bartanka kaga jirno 12 iskuul oo ku xuduudaha ku yaala in luqadda Soomaaliga lagu bilaabo ayaa la isla qaatay oo shalay la daafuray. marka maadaama iskuulada ee gobolka Oromiya aysan markii hore ku jirin luqadda afka Soomaaliga waa maxay baahida hadda un keentay in luqadda Soomaaliga ay ku daraan maadooyinka lagu dhigo iskuuladaas? كل بعيد مرور بوترتي لكن سوى حجرتي دراسات للسمية أو لابد بوشة ولا تحقق على مرور بين إسكوبانيين إن أي بعيدنا أي كبل لابد اللغة تذكو يجو تشارة وحدود لأدين استهمينين استهلان تاس فريكشن كذا أما إسكودعية كذا يا أنت بدن كانوا قوميدين إسكودعان مركز سيلوجو هرتجو إسكودعيها قوميدها تذكو ساس كودحجلان تذكو سوي استفيد عنا وده استهم أو ولا استعال بين قنيان مركز بعيد مرور بوتاجني حتى أنا لقاري وقت جدي لا بركس كرين لها قوميد ولا قوميد marka arintan ma waxay ku timid wadatashi muddo dheer ay labada dhinac sameeyeen mise waa wax aad u aragteen in ay macquul tahay in markaas la sameeyo? wadatashi baa la sameeyey maadaama dadka dhibaatooyin la soo dhex dhigay dhibaatooyinkaasi looga baaqsan lahaa dadku isku aamini lahaayeen isku jeclaan lahaayeen siyaasiyiinta hadday isfahmeen waxaa loo baahan yahay bulshadina in la isfahansiiyo marka dad walaalo oo luqadiiba isweydaarsanaya aqoontii isweydaarsanaya khibradda isweydaarsanaya taas waxay meesha ka saaraysaa midmadowgii iyo khilaafkii ay abuurtay gacan kurribiska ahaa ay TPLF samaysay bay meesha ka saaraysaa. waatee luqadda ardayda midda koowaad u noqon doonta ma arin ay iyagu go'aansan doonaan mise waa loo doori doonaa? waxay ku xidhan tahay meesha iskuulku ku yaal ay ku xidhan tahay koow horta waxna waa wax luqad ahaan loo baranayo waxna waa manhajkii guud ee wax lagu baranayay deegaanada Oromiya oo dhan saan sheegay waxay isla qaateen inay luqad ahaan u bartaan luqadda afka Soomaaliga laakiin tusaale ahaan dadka Soomaalida ah ee Oromiya bartankeeda degan xaq waxay u leeyihiin maadaama ay Soomaali yihiin luqadda afka Soomaaliga inay ku bartaan bay xaq u leeyihiin marka luqadda ku baranayaan waa Soomaaligii manhajka ku qaadanayaan waa manhajkii Oromiya dadka saas oo kale ah ee Oromada ee Soomaalida dhex degan ee af
oromo mooyaan af kale garanaynin iyagoo luqadii soomaaliga hanun qaadanaya haddana manhajkii kale iyo wixii kale waxay ku baranayaan luqada oromiya manhajkuna wuxuu noqon doonaa manhajka soomaaliga waana ta ka dhaxaysa sidoo kale deegaanka oromiya iyo xaaradoo kale waana wax dalka guud ahaan ka jira. ugu dambeyn goormee ayaa lagu wadaa inay dhaqan gasho arrintan? hadda waqtigan aan joognay xaadirka 11 iskuul iyo ka dhaqan galay wixii intaa ka dambeeyana daraasada iyo baahida kolba intay tahay baa sii socon doonta daraasadaas iyo baahidaas marka la soo afjarana kolba baahidu intay noqoto ayaa lagu talaabsan doonaa hadii la yiraahdo. kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka madaxa wasaaradda waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya inooga waramayay aqoon dhanka luqadda ku saleysan oo maamulada deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kan Oromada isweydaarsanayeen. waxaan ugu waramay Fortune Ismaaciil isla Fortune imika hor fadhida mar kale aynu ka codsano inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu door karoon. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa ku andacooday in cudurka safmarka coronavirus uu ka bilowday qaybo badan oo adduunka ka mid ah balse uusan Shiinaha kaliya ahayn. waxa uu sheegay in aragtidan lagu taageeray in la kordhiyo tirada cilmi baarayaasha. hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in kiisaskii ugu horeeyay ee cudurkan laga helay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. saynis yahanada WHO ayaa bilaabi doona baaritaankooda ku aadan magaaladaas lahaan uu ka dilaacay cudurka. Hindiya ayaa waxaa ka socda olole ballaaran oo wadanka oo dhan ah kaasi oo loogu talagalay barnaamijka tallaalka ee coronavirus. arrintan ayaa lagu doonayaa in lagu talaalo dad gaaraya 300 oo milyan oo qof wixii loo gaaro bartamaha sanadka iyadoo la isticmaalayo tallaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford iyo shirkadda dawada samaysa ee AstraZeneca taasi oo ay haatan ku taliyeen guddi dawladeed. wasiirka caafimaadka Hindiya ayaa sheegay in ololahan ay ka qayb qaadanayaan 10,000 oo shaqaale caafimaad iyo mutadawiciin kale. waxa uu wariyaasha u sheegay in aysan jirin wax heshiis ah oo ku saabsan nabadgelyada tallaalka waxa uu uga digay dadka in aysan dhag u dhigin wararka been abuurka ah. qabiirka ugu sareeya dowladda Mareykanka ee ku takhasusay cudurrada faafa ayaa sheegay in Ingiriiska uusan ku raacsanayn qorshayaasha ah in dad badan la siiyo qaybta koobaad ee tallaalka coronavirus iyadoo dib loo dhigayo qaybta labaad ee la siin doono tallaalka. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanka uu ku adkaysan doono inuu dadka siiyo dawooyinka 22 maalmood kadib qaybta koobaad taasi oo soo saarayaasha ay sheegeen in ay muhiim tahay si loo gaaro heerka ugu sareeya ee ka hortagga COVID-19. xayiraado cusub ayaa lagu wadaa inuu ka dhaqan galo Thailand dhammaadka isbuucan si loo xakameeyo xanuunka coronavirus oo soo noqnoqday. baararka iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo ayaa la xirayaa sidoo kale garoomada feerta fagaaraha dagaalka iyo goobaha jimicsiga ayaa iyagana la xiri doona. iskuulada ayaa sidoo kale la faray in 2 isbuuc la xiro. mas'uuliyiinta ayaa rajaynaya inay ka fogaadaan mawjad labaad oo cudurka ah balse xanuunkan ayaa si dhaqso leh sare ugu kacay dhammaadkii bishii hore ee December. ugu dambeynna mas'uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa faahfaahin ka bixiyay isu soo bax weyn oo sharci darro ah oo loogu dabaaldegayay sanadka cusub kaasi oo lagu qabtay gobolka Brittany iyadoo meesha laga saaray bandowga coronavirus. waxay sheegeen in 2,500 oo qof oo ayaa ka qayb galeen xafladda iyadoo qaarkood ay ku lug lahaayeen isku dhacyo rabshado wata oo dhexmaray iyaga iyo booliiska. dadkaasi ayaa dhagxaan iyo dhalooyin ku tuuray booliiska oo isku dayay inay xafladdaasi joojiyaan. saraakiisha tuulada Leoron ayaa sheegay in dadka xafladda ka qayb galayay ayaa ka soo kala safreen dalka Faransiiska oo dhan si ay dabaaldega uga qayb qaataan qaarna ay weli halkaasi ku sugan yihiin. Fortune warkii caalamka ee la socodsiinaysa aad bay u mahadsantahay. waxay noo soo socdo cara ka dhalatay wiil Soomaali oo lagu dilay dalka Mareykanka balse markana bulsho laga tirada badan yahay oo ku nool dalka Kenya ayaa waxa la sheegay inay wajahayaan hubantilaan dhanka dhulka iyo barakicin joogto ah oo ay la kulmayaan muddo 3 sanadood. maxkamad caalami ah ayaa saamartay in dowladda dalka Kenya ee dadkaasi ay dib u dejin u samayso. bulshada lagu magacaabo Ogiek oo dadkeedu ay ka badan yihiin 30,000 oo qof ayaa waxay sheegteen keynta lagu magacaabo Mau ee gobolka Rift Valley ee waddanka Kenya oo ah markaasi meel ay sheegaan in dhaxal ahaan ay u leeyihiin. ase keyntaasi oo leh biidhac muhiim ah ee dowladda dalka Kenya sheegaysa in si sharci darro lagu dayay arrintaasi oo adkaysay hanaankii dib u dejinta bulshadaasi.
wariyaha BBC-da Ferdinand Omondi ayaa haddaba booqday bulshadaasi Goek kadibna warbixintan ayuu inooga soo diyaariyey waxaa soo jeedinaysa Samir Cabdullaahi Jaamac. waa galab wanaagsan haddana adag roob ayaa ku soo da'aya saqafka fasalada dugsiga hoose ee Temtolet ee ku yaala keymaha Mau ee dalkani Kenya. Carruurtu waxay ku ciyaarayaan dhulka meelihiisa biyaha ku jira. gudaha fasal aan cidi maamulin ayaa waxaa ka buuxa jawaano galley ah joodariyaal iyo dhar daadsan. halkani waxa ay hoy ku meel gaara u tahay 30 qoys oo ka soo jeeda qowmiyadda Ojieg. waxa ay halkan ku haystaan xoogo nafis ah iyo asturnaan ragga dumarka iyo carruurta halkan wadaagaya. waxay sheegayaan in 6 bilood ka hor ay waayeen guryahoodii ku yaalay keymaha Mau halkaas oo ay dawladda ka waday burburin iyo in laga dhigo goob dabiici ah oo ay biyaha maraan. Julius Kochek waa 42 jir aabba u ah 8 carruur ah waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha. wezi kaa vizuri katika maendeleo katika nini nabad ma haysan kartid mana ku fakari kartid in aad naftaada hormariso ma haysatid xorriyad iyo madax bannaani aad ku qorshayso noloshaada. dawladda ayaa haatan qorsheynayso in iskuullada dib u furto ma garanayno meel kale oo aan aadno. lakini sasa tuko shule tuna pale pengine ambao ingekuwa vyema twende. qaybta kale ee iskuulka oo ay macallimiinta deganaayeen Florence ayaa casho ku karinaysa. labadeeda gabdhood ee yaryar ayaa daawanaya inkastoo ay halkan ku dhasheen oo ay ku barbaareen. xitaa Florence waa deegaan kadib markii ay weyday hoygeedii ku yaalay keynta. walaaceeda ugu weyn ayaa ah in ay mas'uul ka tahay 5 carruur ah. qowmiyadda Ojieg waxa ay caan ku yihiin ugaarsiga, isku imaanshiyaha iyo wax soo saarka malabka. taariikhda buugaagta ayaa lagu xusay in ay deganaayeen keymaha Mau xilligii 1900. Mau sidoo kale waa biyo mareen muhiim u ah Kenya iyo wabiyada gobolka. saynisyahanada ayaa walaac ka muujiyey korarka dadka deegaansanaya keymaha oo dhibaataynaya. waana arrin ay haatan dawladda isku dayayso inay wax ka beddesho. waxaan haatan ku dhex socdaa aag ahaan jiray keymaha Mau balse haatan waxa ugu hareeraysan waa beero, guryo iyo dad badankeed. keyntii halkan way dhammaatay balse haatan dawladda ayaa tallaabooyin qaadaysa. waxaana la dhigay tusaalayaal lagu kala saarayo waxa loogu yeero dhulka shacabka iyo waxa laga dhigayo keymo la ilaaliyo. hase yeeshee kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa dhaleeceeyay qaabka ay dawladda u wado ka saarista dadka. barnaamijka horumarinta dadka Ojieg ayaa sheegay in sanadkan oo keliya la dilay 6 qof islamarkaana ay barakaceen in ka badan 100 qoys. dhibaatooyinka la xidhiidha barakicinta dhulka kaas oo hareeyay bulshada. balse George Natembeya oo ah gudoomiyaha gobolka Rift Valley ayaa sheegay in xaaladda aysan faraha ka bixin. marka lagu eego indhaha dawladda xaaladdu ma aha mid quus ah laakiin waxaan wadnaa go'aan kama dambaysa oo arrintan ku saabsan si qof kasta oo sharci ku degan halkaas uu helo dukumentigiisa. caqabadda isbedbeddel ayaa ah in Mau uu yahay meel biyo qabatin aad u adag leh. 3 sano ka hor kadib dagaal daba dheeraaday maxkamadda xuquuqda bini'aadamka ee Afrika ayaa xukuntay in qowmiyadda Ojieg ay leeyihiin xuquuqda ku noolaanshiyaha Mau waxaana ay amartay dawladda Kenya in ay u hesho dhul ay dejiso dadkan. balse Daniel Kobe oo aas-aasay barnaamijka horumarinta dadka Ojieg ayaa sheegaya in mashxaradii daba socotay xukunka ay haatan u muuqato in ay isku beddeshay jahwareer. And there is a fatigue which is being aggravated by this. waxaa jira daal ay arrintani sababtay waayo dad badan ayaa dareemaya daal. bal xasuuso waxaan maxkamad ku jirnay 20 sannadood. So that kind of waiting is too long. So we are not satisfied at all. dawladda ayaa sheegaysa in ay qiimaynayso sidii dadka barakacay ay hooy u siin lahayd inta aysan dhibaataynin keymaha. balse dadkan bannaanka iyo qabowga jiifa iyo fasallada dhexdooda go'aankaasi waa uu ku soo daahaya. Samir aad u mahadsan tahay. waxayna la socodsiinaysay warbixintii wariyaha BBC-da Ferdinand Omondi uu ka diyaariyay dalka Kenya. halka weli aad kala socotaan dhageystayaal waa BBC. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida.
sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta وهاجا dhegeystayaal ciyaarihii iyo mawlido London fadhiya ayaan goordhow si toos markaasi ula hadli doonaa balse markana dalka Mareykanka qaar ka mid ah shacabka magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo careysan ayaa isugu soo baxay goobta uu ka dhacay dil toogashaha oo ay booliska wadankaasi u geysteen wiil Soomaali Mareykan wiilkaasi oo lagu magacaabo Dolaal Beyle oo ahaa 28 jir ayaa dilkiisa waxa ay boolisku uga hadleen siyaabo kala duwan haddaba wararka umurtaasi la xiriir waxa la socotay كوثر وإمك هاتن استوديوها ينقوه لسا كوثر فافاينتا نسي bashir sidaad sheegtayba wiilkaasi magaciisu yahay Dolaal Ciid waxa uu ku dhex jiray baa leeyahay gaarigiisa kadib markii lagu joojiyay meel u dhow kaalin shidaal iyo meherad gawaarida lagu dhaqo goobtaas waxa ay hal mayl kaliya u jirtaa meeshii ay booliiska Minneapolis bishii May ay ku dileen George Floyd oo ahaa nin madow ah dad goobjoogayaal ah iyo booliiska ayaa markii hore sheegay in Dolaal uu isaga markii hore xabad ku bilaabay booliiska kuwa oo iyagana markii dambe toogtay oo halka ku dilay cabsida ugu weyn ee laamaha amniga ay ka qaadeen isu soo baxa dadka deegaanka ayaa waxay ahayd in arintu ay isu bedesho dibadbaxyadii daba socday dilkii la socotay George Floyd oo gilgilay guud ahaan ee wadankaasi Mareykanka bashir oo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa waxay booliiska ka dalbadeen inay markaa u soo bandhigaan bal muuqaalka kaamirada jidka ee duubtay dhacdadaasi taliska booliiska magaalada waxa ay shacabkaba u ballan qaadeen inay shaacin doonaan muuqaalkaasi iyagoo markii dambena sii daayay muuqaal 1 daqiiqo ka yar oo laga arkayo sida ay wax u dhaceen waayo marka booliisku marka ma ka hadleen sababta falkaasi u geysteen mudaharaadayaal iyo booliis oo ishortaagan ayaa xilay shacabka dalbanayeen in la tuso muuqaalada kaamirada jidka ee laga arkayo dhacdada oo aan ku sheegay markii uu falkaasi dhacay kadib waxa la leeyahay ciidan booliis ah waxay gaareen guriga qoyska wiilka dilay uu ka soo jeedo dabcan iyagoo markaa ku qayliyay caruur yaryar kadibna waalidiintiisaba u sheegay in waalidkooda uu dhintay sida lagu qoray wargeyska Sahan balse ma cadda sababta sidaan arkay ee loo dilay wiilkaasi waa garta marka ka waran ehelkii iyo wiilkii dadkii dhalay ma ka hadleen falkan oo maxay ka yiraahdeen qaar badan oo kamid waxaan arkay iyagoo la hadlay warbaahinta gudaha ee wadanka Mareykanka bashirow wiilka aabihii Bayle Cadood Geele oo dhalay 11 caruur ah waxaa la sheegay in isaga iyo qoyskiisuba ay argagax weyn ay kala kulmeen booliiska markii ay gurigooda tageen waxay yiraahdeen cabsi xoog leh ayaan markaan dareenay waxaan u maleynaynay inay nadil rabaan ee boolisku waxa sida yiri waraysi uu siiyay ee wargeyska Sahan waa wiilka aabihii Minneapolis waxay ka mid tahay magaalooyinka badan oo ka tirsan Mareykanka oo dhibaato kala kulma ee qalalaasaha ku sii badanaya tan iyo markii uu dilaacay cudurka safmarka ah ee COVID-19 laamaha amnigana waxay diiwaan galiyeen baa la leeyahay ilaa 81 dil oo ka dhacay magaaladaasi intii markaa lagu guda jiray ee sanadkii 2020 waa sida uu qoray wargeyska New York Times tiradaasi waxa ay isku dar ahaan ba ay ka badan tahay tiradii 2 sano ee ka horeysay ee ka dhacday ama falalka noocaasi ka dhaca ee wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay ku badan yihiin Soomaalida bashir waaye marka ugu dambeyntii marka Kowthar xaaladdu hadda waa sidee mar hadii dadka isku soo baxeen falkankii ka horeeyna in ognahay in xasrad badan oo ka abuuray wadanka Mareykanka waa dilkii George Floyd waa sidee xaaladda marka inta badan warbixinada bashiro laguma qorin sababta wiilkan loo dilay waxaana booliiska ay weli wadaan baaritaano oo dadkana waxay dalbanayaan in muuqaalo oo markaa la tusiyo bal horta sida ay wax u dhaceen inkastoo hadda 1 daqiiqo wax ka yar kaliya la tusiyay marka waxay doonayaan in cadaalad la marsiyo wixii ka dambeeyay sababta loo dilay marka weli baaritaan u socdo hadda ma hasantahay Kowthar oo nala socodsiinaysa wararka la xiriira ee dibadbax ay dad markaasi Mareykanka ku dhigayaan kaasi oo la xiriira wiil Soomaali oo ciidamada booliiska wadanka Mareykanka ay ku dileen Minneapolis markana waxaynu u guda galaynaa ciyaarihii
stuudiyaha magaalada London waxaa fadhiya Mawlid soo dhawow dabcan ciyaar xiiso leh ayaa galabta iyo caawa jira bal kuwa imika socday inooga waran inta aynan galin kuwaasise goordhaweyd ciyaar adag ayaa Mawlid ku soo dhamaatay garoonka Tottenham kulley kooxdii Leeds ay waxba ku dhacay bal inooga waran bashir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa sidaad sheegtay weeyaan kooxda Leeds martibay ahayd maanta garoonka Tottenham Hotspur ee ku yaala waqooyiga London ay marti ku ahayd waxaana jirta in lagu yaqaano kooxdan Leeds marka ay ciyaarayso gurigeeda ha joogto ama marti ha ahaatee had iyo goor waxa lagu yaqaanaa inay kubad janta fagax ciyaaraan oo aysan difaac gelin oo aanay kala aqoonba koox ka yar iyo koox ka weyn marka tababarahan inta badan Marcelo Bielsa ee u dhashay waddanka Argentina arinta lagu dhaliilay arintaasi weeye maantana waxaa qabsatay mid ka mid ah arintiyo kooxda Tottenham oo muddooyinkan aad u fiican Jose Mourinho uu soo dhisay isla markaasna caan ku ah kubadda weerarka ayay isku dhaceen maanta oo marti ay u ahaayeen laakiin waxaa jirtaba in daqiiqadii 29aadba ay gool kulaad heshay kooxda Tottenham waxaan u dhaliyay in kala yaraado Harry Kane oo markaasi isagu ciyaarta hoggaankeeda siiya kooxdiisa 43 daqiiqo markii ay mareysana gool labaad ayaa Tottenham waxa u dhaliyay Son Heung-min oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed inankaasi oo noqday ciyaartooygii ugu horeeyay ee ajnabi ah kooxda Tottenham u dhaliya 100 gool waxaana markaasi ciyaarta qaybtii hore Bashir ay ku soo dhamaatay 2-0 laakiin qaybtii labaad markii la isku soo laabtay halkeedii ayay Tottenham ka sii anba qaadeen weerarka iyo weerar celiska Leedsna isma oran 2 gool baa lidin ka dhaliyay difaac gal oo markaas waxa raacsataan kubad weerar celisa sidii bay u soo carareen haddana waxaa jirta markaasi in ay heshay kooxda Tottenham kubad geeska laad ah daqiiqadii 50aad waa 5 daqiiqo oo qura qaybtii labaad markii ay socotay difaaca la yiraahdo Tommy Alderweireld oo dhashay waddanka Belgium ayaa kubadii madaxa la helay iyadoo markaana goolhayuhu uu ka soo celiyay diilinta waxaana markaas jirtay labada koox ciyaartooydu ay kooxna ku doodaysay waa gool kooxna ay leedahay gool maaha laakiin garsoore ciyaarta oo arintani ku xaqiijiyay aaladda leeyahay Goalline Technology ama kubadda dhaaftay diilinta goosha ayaa markaa waxa lagu xaqiijiyay in kubaddii ay dhaaftay diilintii oo gudaha ay u gashay goosha sidaas waxay ku noqotay 3-0 Leeds isma dhigin oo ilaa iyo inta wixii ka dambeeyana waxay sii waday weerarkeedii laakiin wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay waxaana sidaas 3-0 natiijadii ay ku noqotay kooxda Tottenham oo guul caaqiba leh la hoyatay ama galabtaba gaartay Bashir ka waran marka Mawlid oo guushan imika gaartay kooxda Tottenham ee Mourinho hogaamiyo maxay ka dhigan tahay marka in sidaas ay u guuleystaan horta Tottenham bishii September iyada hoggaanka mar qabatay kadibna waxaa jirtay in kaalimaha labaad iyo saddexaad iyo afraad ay marba tagaysay laakiin saddexdii asbuuc ugu dambeeyay Leicester City, Man United iyo Everton ayaa marmarka qaarkood isku bedelaya kaalimahaasi iyadoo marbay waxay tagtaba kaalinta 7aad marbay 6 timid marbay 5 timid laakiin guushani waxay u qaaday kaalinta 3aad oo 29 dhibcood bay tagtay waxaana markaasi jirta in 4 dhibcood oo qura ay ka hooseyso Man United iyo Liverpool oo iyaguna leh 33 dhibcood oo koowaad iyo labaad ku jira waliba ku xisaabtan oo waxa jirta in ciyaar Fulham ay la ciyaar lahaayeen toddobaadkan gudihiisa la baajiyay kooxda la yiraahdo Tottenham sababtana ay tahay cudurka COVID-19 oo laga helay ciyaartoy ka tirsan kooxda Fulham Jose Mourinho arrintaas aad buu uga caraysnaa oo wuxuu rabay ciyaartu inay socoto wuuna ogaa ciyaarta waa tan dhexmari lahayd miya Fulham iyo Burnley taa way soo socotay taa waa la baajiyay berrito la dhici lahayd laakiin waxaa jirtay mid ayadoona toddobaadkan gudihiisa dhex mari lahayd Tottenham iyo Fulham oo la baajiyay oo Fulham ayaa waxaa jirtay in ciyaartooyda iyo shaqaalaha kooxda laga helay fayraska corona ciyaartan Burnley iyo ayaga dhex mari lahaydna berri bay dhici lahayd marka macnaheedu waxay tahay in ciyaartii labaad ee ahayd ama noqonaysa ciyaartii labaad oo Fulham la baajiyo marka Jose Mourinho ciyaartaasi hore ayuu aad uga caraysnaa oo wuxuu lahaa waxaan diyaar u ahaa inaan ciyaaro wuuna ogaa hadduu kulankaasi badin lahaa maantana uu badin lahaa waxay noqon lahayd markaa inuu joogo 32 dhibcood oo wuxuu lahaa markaasi waad ku adkeyn kartaa labadani kooxood ee United iyo Liverpool imika hoggaanka haysta laakiin maba xumo xaaladdu way u fiican tahay imika kubadda markaad fiiriso haysashada kubadda 64
bashiiro waxa la yaab leh kooxdii saddexdii eberka laga dhaliyay ayaa kubadda haysatay boqolkiiba 36 waxa haysatay Tottenham iyo Jose Mourinho waa lagu yaqaanaa inta badan kubadda wuxuu ku leeyahay iska qaata kubadda haysta laakiin wuxuu ku xisaabtamaa labada nin ee leeyahay Harry Kane iyo Son ay ku dagaalamayo kubad weerar ciris ay ku ciyaaraan hadda ka hor marba waxa jirtay ciyaar Man City oo 2 eber kaga badiyay marka wariya wuxuu weydiiyay guushi waad gaartay 2 eber baad ku badaysay buu yiri laakiin kubadda waxa haystay buu yiri kooxda Man City iyo Pep Guardiola wuxuu yiri kubadda gurigooda hal aadin ha qaateen buu anu waxaan qaatay 3 dhibcood marka Jose Mourinho waa nin lagu yaqaan inta badan inuu difaac galo kubadda uu nasiibkiiba uga heliyay marka nasiibkan uu heliyay kooxdan Leeds bal eeg boqolkiiba 64 bay kubadda haysatay waana marka laga badiyay 18 mar bay toogatay goosha Tottenham goosheedana yana waxay toogatay Leeds 20 jeer 7 mar ayay ku aadisay Tottenham goosha Leeds 7daas marna 3 kamid ah dhalisay Leeds 5 mar ayay ku aadisay 5tii marna ama birta ku dhafatay ama golahaya ayaa difaacay 15 khalad ayay gashay Tottenham Leeds waxay gashay 13 khalad 5 koorno ama geeskalaad ayay heshay Leeds Tottenham waxay heshay 3 mar oo geeskalaada marka waxa moodaa inay ahayd ciyaar labada kooxood ay kala awood badnaayeen laakiin natiijadii iyo goolashiiba ay raaceen xagga Tottenham waxaana runtii la oran karaa inay ahayd ciyaar aad u xiiso leh Bashiir waayahay marka Mourinho marka taa laga soo tago kulamada kale dhacay waxa kamid ah ciyaarta kooxda Manchester United oo guushi ay ka gaartay kooxda kale Aston Villa aad loo hadalhayo goolhii markaasi waa goolkii rigooraha ay ku badisay marka bal taa ka waran ayaduna maxaynu ka ognahay arintani horta ciyaartan xalay bay dhacday waanagii maanta barnaamijka kaga hadalnay kooxda Man United guul caaqibay bay gaartay guushii xalayna waxay ahayd tii tobnaad oo yani kulankii tobnaad oo kooxdan shayaadiinta cascas aan marna laga badin runtiina niyadii bay u soo kordhisay oo imika waxay isku dhibcan yihiin kooxda la yiraahdo Liverpool oo hogaanka haysta 33 bay isla joogan laakiin kubaddii gool kulaadka ahayd oo ay kooxda United ku badisay oo Bruno Fernandes uu dhaliyay ee uu keenay Paul Pogba ayaa waxa ka hadlay tababaraha kooxda Aston Villa Dean Smith Aston Villa waa la socotay aad bay u fiican tahay xilli ciyaareedkan oo ciyaartii xalay haday badin lahayd waxay tagi lahayd meel fiican oo waa la socotay imika waxay leedahay 26 hadii xalay ay United ka badin lahayd 29 bay tagi lahayd laakiin Man United baa dhibci qaadatay oo 30 joogtay 33 bay tagtay marka Dean Smith wuxuu leeyahay gool kulaadkaasi si fudud ayuu isku tuuray ciyaartoyga leeyahay Paul Pogba ee Faransiiska u dhashay wuxuu leeyahay VAR ka ama aaladan gorsooraha caawisa waa in loo isticmaala sida ay tahay buu leeyahay oo waxa fiican in markaasi mararka qaarkood aysan qaadan buu ku leeyahay go'aamo fudud ama go'aamo qaldan oo waxay tahay buu ku leeyahay sida loogu talagalay inay u isticmaalaan isku soo duub laakiin Man United waxay u ahayd rajo guul aad u fiican kooxdan Aston Villa mar walba ay la ciyaaraysa Man United runtii xaaladdu way ku adag tahay oo 43 kulan hal mar oo qura ayay badisay waa 2009 bishii December ciyaartoyga ciyaaraha ka fariistay oo la oran jiray Agbolor ayaa u dhaliyay hal iyo eber goolka ku badisay Aston Villa wixii inta ka dambeeyay ama barbardhac bay galisay ama United baa qaadanaysay dhibcaha marka Aston Villa waxay raadinaysay iyadoo xilligan aad u fiican inay kan leeyahay Jack Grealish ku hubaysan inay natiijo fiican keento laakiin arintaasina runtii ma noqon mid sii socota oo guushi waxay raacday United waxayna u qaaday meel aad u fiican imika taageerayaasha United waxay leeyihiin baraha bulshada markaad fiirso gaar ahaan Twitterka iyo Facebooka koobka anaga ayuu gacanteena ku jiraabo ciyaarta 17 January aan la ciyaari doono Liverpool hadaynu ka badino marka waxay leeyihiin rajo fiican baan soo gashay oo markii ugu horeysay tan iyo sidii uu baxay Alex Ferguson ayaa United imika wax u soo carfaya koobkii Bashir Mourinho talamuhu balan u kaadina inkastoo laga yaabo inay iska sii dabaldegayaan kooxdaadii Arsenal ahayd oo maalmahanba soo kabanaysay waxay la ciyaaraysaa kooxda kale West Bromwich ka waraydu maadaama tababaraha cusub ee kooxdaasi la filayo inuu Arsenal ku adkeeyo Bashir arinta la yaab kale waxa weeye horta tababarahani la yiraahdo Sam Allardyce ee kooxda West Bromwich wuxuu qabtay markii la eriyay ninkii u dhashay wadankaasi Croatia Slavan Plinic marka wuxuu yiri 2 asbuuc ka hor internet Arsenal soo kicin oo ay sabadin labada ciyaar ugu dambeysay ayuu wuxuu yiri anaga iyo Arsenal waxaan ku dagaalamayna buu yiri sidaan horyaalka uga bixi lahayn marka wuxuu ku xisaabtamay ciyaartan caawa ayuu doonayay inuu dagaal xagga maskaxda uu Arsenal ku sameeyo laakiin hadalkaasi waxa laga yaabaa xagga Arsenal inuu u fiicnaadayo oo ay yiraahdeen ma West Bromwich oo ku jirta saddexda ugu hooseysa ayaynu caawa la tartamaynaayo nagu dagaalamayso nagu jeesjeesaysa waa iyagii ka bidiyay Chelsea
Brighton ayaga ka badiyay laakiin caawa waxay tagi doonaan garoonka leera Hawthorns garoonkaasna 3-0 bay waxay kaga dhaliyeen Chelsea laakiin Chelsea way soo kabatay oo 3 gool way keentay oo markaa waxay dhaliyeen 3-3 arrinta kale la yaab kale Bashir waxay tahay kooxdan la yiraahdo West Bromwich ciyaartii ka horeysay waa laga badiyay laakiin haddana guriga Liverpool bay tagaan oo waxay ka soo qaateen dhibic 1-1 bay la soo galeen marka runtii waxa moodaa inay tahay koox la yaab leh oo kooxaha waaweyn kaaba ku adkayso rafaad miiran ah Man City waa la socotay 1-1 bay la galeen marka ciyaartan caawa guriga West Bromwich lagu ciyaaraya Arsenal niyad fiican bay iminka haysaayo waayida labada ciyaar ugu dambeeyay soo badaysay laakiin haddana West Bromwich kaalinta 19aad bay ku jirtaa waa labada kooxood ugu hooseeya Arsenal haddii maanta ay badiso waxay tagaysaa 23 oo Leeds ayay ka kormari kartaa laakiin haddii ay West Bromwich badiso iyaduna 11 dhibcood bay tagaysaayo marka meel fiican tagi mayso waayo Fulham ayaa ka gool yar goolasha laga dhaliyay iyada 24 gool baa laga dhaliyay oo goolasha wadaanta ayaa u ridan marka waa ciyaar runtii aad iyo aad u adag Bashir waayahay Molido ka hor intaynan ka bixin ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska Brisa ciyaaraha loo balansan waxaa kamid ah ciyaarta dhex mari doonta Man City iyo Chelsea oo waliba Man City leeyahay 5 ciyaar oo kamid ah kooxdaasi waxay la maqan yihiin cudurka COVID-19 awgii bal ka waran ciyaartaas iyadu maxaa niko ognahay maxaa laga saadaalinaya waa ciyaar runtii aad iyo aad u adag waxay ku soo aadaysaa xaaladda Chelsea aad u xun oo Frank Lampard culays baa saaran ciyaarihii ugu dambeeyay waa la socotaayo waa laga badiyay laakiin gurigiisa markuu ku ciyaaraya Stamford Bridge galbeedka London aad buu fiican tahay Chelsea laakiin haddana wuxuu ka faa'iideysan karaa ciyaartoy muhiim ayaa ka maqan kooxda la yiraahdo Man City oo waxa kamid ah Kyle Walker iyo Gabriel Jesus 3 ciyaartoy oo kale oo ilaa hadda aan la shaacin oo inaga BBC haan aan la ogolaan magacyada aan sheegno ayaa iyaguna jiray kastoo baraha bulshada qaarkood lagu soo qorayo 3 ciyaartoy magacyadooda mid kamid ah laakiin inagu ma haysano fasax aynu ku baahino marka 5 ciyaartoy ayaa ka maqnaan doona kooxdan berrina ayaan ogaan doona ciyaartoydaas ku ay yihiin Chelsea marka waxa laga yaabaa inay arrintaas u saacido ay fursad fiican siiso waliba Chelsea wax u soo laabanaya inay Real Morocco yara Hakim Ziyech oo garabka bidigta ka ciyaara ahna kubadaha ee geeskalaadka ugu fiican ama kubada laanchada loo yaqaano marka runtii waa ciyaar waxaan filaynaa berri xiiso leh waana xilliga ugu fiican oo 7:00 saacada bariga Afrika ay ciyaartaas dhici doonto 7:00 bariga Afrika ay ciyaartaas dhici doonta waa ciyaar Frank Lampard uu doonayo inuu kaga soo kabtay niyadjabka Pep Guardiola uu dareemayo Liverpool in la qabtay isla markaasna koobka uu furan yahay oo waa la socotaayo Bashiro arrinta labaad kale waxay tahay kooxda tobnaad ku jirta West Ham iyo kooxda ugu horeysa Liverpool iyo Man United waxa kala qaybiya 7 dhibcood oo qura micnaheedu marka waxa weeye 10 kooxood ayaa 7 dhibcood u dhaxaysa horyaalka marka waa furan yahay cid kasta oo furan yahay xilliyaana kale markii la joogay sanadkii hore waa la yaqaan Liverpool horyaalka inay qaadayso markastana kooxba dhibco badan ku hogaaminaysa laakiin imika kaabiga la isku haya cagta la isku haya Bashir waayahay Molido marka ka waran dhanka iyo horyaalka dalka Spain La Liga waxa la leeyahay aad baa la isugu dhagan yahay asaga qodiisa runtii aad iyo aad baa la isugu dhagan yahay kooxdii Real Madrid ahayd ayaa imika waxay doonaysaa inay ka faa'iideysato kooxda ay ka jaban tahay ee aadka ay u xifaaltamaan kooxda Barcelona caawa 11 saacada bariga Afrika ayay waxa qaabili doontaa kooxda Celta Vigo imika waxa soo dhamaatay Levante iyo Villarreal oo 2-1 ay ku badisay Villarreal Real Betis na Sevilla ayay qaabili doontaa Real Valladolid na waxay ayaan u marti tahay kooxda Getafe marka runtii horyaalkana aad iyo aad buu u kulul yahay sanadkan Real Madrid waxay rabtaa inay wacdar dhigto inkastoo Atletico Madrid oo kacsanna laftigeeda ay joogto marka sanadkan horyaalku waxa la is oran doonaa caasimada Madrid ma soo dhaafi doono waa gartay Molido marka isla dhankaas intaynan ka bixin wali waxa jira oo la leeyahay in haatan uu furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda maxaa soo kordhay ilaa imika oo la taaban karaa isha waxaynu ku haynaa ciyaartoyga leerada Messi oo hadda u furan tahay kooxdu aadi lahaa waxa la leeyahay Mareykanku aadi doona oo horyaalka MLS ka Mareykanka miyuu ka ciyaari doona mise Man City iyo Premier League ayuu imaan doona iyo macalinkiisii hore Pep Guardiola ayuu imaan doona waa ninka sida weyn loo hadalhayo waxa kale oo iyadana aad loo hadalhayaa ciyaartoyga leerada Haaland oo kooxda u ciyaara Borussia Dortmund ayaa waxa la leeyahay waxa laga yaabaa in ay kooxda Real Madrid lacag dul dhigto waxa kale oo isaguna jirta ciyaartoyga leerada Zaha oo isna la leeyahay waxa laga yaabaa inuu ka tago kooxda Crystal Palace saxiixyo waaweyn ayaa laga yaabaa inay dhacaan Arsenal oo kale waxa la leeyahay Mesut Ozil waxa laga yaabaa inuu aado kooxda la yiraahdo Fenerbahce ka ciyaarta horyaalka wadankaasi Turkiga
oo waxaa laleeyahay xaaladii Arsenal way uga dhamaatay wiil yar oo la yiraahdo Tariq Lamptey oo ciyaara kooxda Brighton oo 20 sano jira ayaa koox badan oo Bayern Munich ka mid ah oo Arsenal ka mid tahana isha ay ku hayaan waxaa kaloo iyaduna jirta Isco oo laleeyahay Arsenal inuu yimaado laga yaabaa oo u ciyaara kooxda Real Madrid inkastoo Everton laga yaabo inuu aado Carlo Ancelotti uu joogo horey u soo maamuli jiray kooxdaasi Bashir aad baad u mahadsan tahay Mawlid waan ku salaamayaa aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal intaan waxa ku dhan barnaamijka ciyaaraha uu si toos ah Mawlid la socodsiinaya barnaamijka waxa la socodsiinaya aniga Bashir Maxamed Caata waxa isku soo dubariday Samir Cabdullaahi Jaamac tan iyo barinta aroortii 7 intaynu dib mar kale hawada u kulmi doono waa dhamaantood isku duwan oo dhamaantiin idin leh sidaas nabadgelyo